waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني كبرو تيفيجا قرنكا إيا إذا عد الراديو هرجيسة مقعيقو عبد الحكيم محمد حسين وحان إذين دقيا مادة ساينسكا فصل كاللحاد تيرم كي دنبي أيام بلابيا وحان كبلابيا موضوع ama cutubka la yidhaahdo kulku muxuu yahay waa maxay faa'iidooyinka uu kulku inoo leeyahay kul markaynu soo hadal qaadno kulaylka ilaaha ugu muhiimsan aynu kulaylka ka helno waxaa ka mid a cadceedda waxaa kale oo aynu ka helnaa shidaalka waxaa kale oo laga heli karaa tamaraha kale ayaa waxaa loo bedeli karaa kul markaa kulku faa'iidooyin badan buu nolosheena u leeyahay cutubkaas ayaynu gudagelaynaa cutubka toddobaad waxaa lagu baran doonaa faa'iidooyinka tamarta kulku ay u leedahay aadanaha qodobka labaad waxaynu ku baran doonaa saamaynta uu kulku ku leeyahay adkayaasha dareerayaasha iyo hawada ama neefaha baan odhan karaa saddexdaa xaaladood waxaa laysku odhan jiray maatar baa laysku idhaahdaa haddaba waxaynu ka hadlaynaa saamaynta uu kulku ku leeyahay saddexdaa xaaladood waa adkayaashii wax alla wixii adke ah waa wax alla wixii dareere ah ay biyuhu ka midka yihiin iyo neefaha ay ka midka tahay oxyginta carbon laba oxideka nitrogenka iyo kuwa kale la midka ah waxaa kaleynu ku baran doonaa ujeedooyinka cutubkan aynu ku baran doono ka mid a isbeddelka tamarta kulka waxaa ka mid a tamarta kulka waxaa loo bedeli karaa tamaro kale sida oo kale tamaraha kalena waxaa loo bedeli karaa tamar kul marka isgedgediga tamarta kulka ayaynu iyadana ku qaadan doonaa isbeddelka tamarta kulka markaan leeyahay qodobada iyo qodobo kaloo muhiima ayaynu ku qaadan doonaa cutubkeenna toddobaad ma faa'iidooyinka tamarta kulka ayaa halkan inoogu qoran ardayow haddii lagu weydiiyo inaad wax ka qorto faa'iidooyinka tamarta kulka waxaa loo isticmaalaa kow cunto karinta dhammaan cuntooyinkeena kala duwan markaynu diyaarsanayno ama aynu karsanayno waxaynu u baahannahay tamar kul qodobka labaad tamarta kulka waxaynu uga baahannahay kaawiyadaynta dharka oo dharka marka la kaawiyadaynayo ee kaawiyadda aynu isticmaalayno xitaa haddaad tamarta danabka aad isticmaalayso kaawiyaddu tamarta danabka ayay u beddelaysaa tamar kul markaa tamar kul baynu isticmaalaynaa kaawiyadaynta baynu isticmaalnaa qodobka saddexaad waxaynu tamarta kulka u isticmaalaa ama uga faa'iidaysanaa in aynu ku diirsanno guryaha oo markaynu qabow badan dareenno aynu doon in gurigii diirino waxaynu u baahannahay tamar kul sidaasi la mid ah tamarta kulka waxaa isticmaala warshadaha si ay u dhalaaliyaan biraha iyo waxa la midka ah
intaa markaan kaga imaado faa'iidada ay tamarta kulku ay inoo leedahay innaga ciwaankeenna kale wuxuu noqonayaa saamaynta kulka ee maatarka saamaynta kulka ee maatarka ardayow maatar waxaa la ysku yidhaahdaa 3 xaaladood ayuu maatarku u jiri karaa 1 waa adkayaasha 2 waa dareerayaasha ama dareeraha 3 neefaha ama hawooyinka haddaba kuwaasaynu doonaynaa saamaynta uu kulku ku leeyahay marka shay maatara oo 3daa xaaladood ka mida la kulayliyo maxaa saamayn ku dhacaysa maxaa isbeddel ku dhacaysa aynu ka hadlaynaa kulku horta muxuu yahay kulku ayaa qeexdinta ama maxaad kulka ku qeexaysa haddii lagu yidhahdo qeex kulku waa nooc ka mida tamarta waayahay marka walax la kululeeyo haddaba 3 wax ayaa dhaca walax haddii kulaylin lagu sameeyo waxa dhici kara 3 wax baa ku dhici kara 1 waxa sii kululaada walaxdii walax baa la kulayliyey waxa sii kululaada walaxdii marka la leeyahay waxa loo jeedaa heer kulkii walaxda ayaa kor u kacaya walaxdii aad bay u kululaanaysaa 2 waxa laga yaabaa inay walaxdii beddesho qaabkeedii horey beddeli kartaa walaxdu waxa laga yaabaa inay walaxdu marka hore ku jirtay xaalad adke ah haddii la kulayliyo waxa laga yaabaa inay walaxdii xaaladii adkaha ka tagto oo ay isku beddesho xaalad dareere ah iyada oo dareere ku jirtay haddii la kulayliyo aad loo kululeeyo waxa laga yaabaa inay walaxdii isku beddesho neef marka la leeyahay walaxdii waxay beddeli kartaa qaabkeedii hore saamaynta uu kulku ku keeno walxaha ama alaabada ayay ka mid tahay qodobka 3aad waxa laga yaabaa inuu kordho muggii walaxdu walax marka la kululeeyo muggeedii iyo xajmigeedii baa weynaanaya walaxdii way fidaysaa markay kululaato markay kululaato muggii baa kordhaya marka leeyahy 3daa saamaynood ayaa uu kulku ku keeni karaa shay ama shay maatara haddii la kulayliyo qodobkanna halkan waxaan kaga soo baxay saamaynta waxaan kaga soo baxay waxa dhaca marka walax la kululeeyo isbeddelka ku dhici kara oon 3 qodob ku soo ururinay heer kulka waa heerka kulaylka ee walaxda heer kulka markaynu leenahay ardayow waa maxay heer kul ayaa lagu weydiin karaa heerka kulaylka ama qabowga ee ay walixi leedahay ayaa la yidhaha heer kul baa la yidhahdaa inta kulaylka ama qabowga walaxda uu marayo ayaa heer kul la yidhahdaa sidaad la wada socotaan waxaa la cabiri karaa heer kulka qofka bani aadamka ah oo dhakhaatiirta ayaa cabira waxaynu cabiri karnaa fasalka aad ku jirtaan heer kulkiisa deegaanka heer kulkiisa marka waa maxay heer kul ayaynu ka jawaabnay haddaba haddii aad doonaysa inaad cabirto heer kulka ama qolka ama deegaanka ama biyo qalab baa loo baahan yahay aalad baa loo baahan yahay waxa lagu cabiraa heer kulka aaladda la yidhaahdo heer kulbeeg markaynu xaddiga kulka a kordhinno haddii walax kulaylka lagu farabadiyo aad loo kululeeyo waxa kor u kaca heer kulka walaxda heer kulkeedu aad buu kordhayaa marka kulka la yareeyo ama hoos loo dhigay shaygii la qaboojiye meel qabow la dhigana waxa yaraada heer kulka walaxda intaa markaan heer kulkii aan kaga soo baxo qodobkeennan kale ama ciwaankeennan kale wuxuu noqonayaa saamaynta uu kulku ku leeyahay hawada waanigii soo sheegay saamaynta uu kulku ku leeyahay maatarka markaa hawadu waxay ka mid tahay maatarka ayay ka mid tahay
markaa bal waxaynu soo qaadanaynaa hawooyinka marka la kululeeyo saamayn nooceeyabaa muxuu saamayn kulku ku yeeshaa marka la kululeeyo walxaha qaar ayaa gubta walxaha qaar haddaad dabka saarto sida loox yaroo kale aad soo qaaddo dabka saarto wuu gubanayaa dambas buu isku bedela kaasi wuu baaba'aya qaar kale oo ay biruhu ka mid yihiin haddii aad kululayso iyaga isbeddel kale oo ayaa ku dhacaya waxa laga yaaba inay fido haddii kulka lagu wado ay dhalaasho oo ay isku beddesho hoor marka haddaba marka la kululeeyo walxaha qaar ayaa gubta kuwa kalena way sii weynaadaan way sii weynaadaan waxaan uga jeedaa way fidaan oo intii ay markii hore xajmigeedu leekaabaa kordhaya marka walaxi sii weynaato haddaba waxa aynu nidhaahnaa waxay buuxisay meel ka sii weyn habkan ayaa la yidhaahdaa fididda waa maxay fididdu markay walaxi buuxiso meel inteedii hore muka weyn ee ay weynaato ayaa waxaa la yidhaahdaa walaxdaasi way fiday ama fidid baa la yidhahdaa haddaba su-aal baynu isweydiinaynaa ma sababaa kulku fididda hawada haddii hawo la soo qaato oo meel lagu shubo for example hawo haddii kubad yar lagu shubo ama shay kale lagu shubo oo la kululeeyo hawadii ma fidaysaa haa tijaabooyin ayaynu ku caddayn doonaa inay hawadu fidayso marka la kululeeyo oo waanigii markii horeba sheegay in maatarka oo 3 xaaladooda mid walba marka la kululeeyo uu weynaanayo fidayo waxqabadka koowaad ama tijaabada koowaad maxay inoo faa'iideynaysaa waxqabadkani wuxuu muujinayaa fidista hawada bal si aynu u caddayno hawadu marka la kululeeyo inay fido iyo in kale ayaa waxaynu soo qaadanaynaa tijaabo haddaba si aynu u samayno tijaabadan qalabka loo baahan yahay waxaa ka mid ah kow buufino ama bac buufino markaan leeyahay waxaan u jeedaa biibiila ayaad odhan kartaa ama bac miika yar baad soo qaadan kartaa bac kow laba waxaa kalood u baahan tahay quraarad baad u baahan tahay quraarad yarna waad u baahan tahay biyona waad u baahan tahay oo biyaha ayaynu ku shubi doonaa quraaradda il kuleed shay kul bixinaya sida shamac oo kale aynu u baahannahay haddaba qaabka la yskugu dhejinayo waxaynu ku arki doonaa jaantuska ama sawirka soo socda qaabkaad iskugu hagaajinaysa wuxuu ku yidhi quraarad baad haysatay ku dheji buufinada ama bacda afka quraaradda quraarad markaad soo qaadato afkeeda bannaanee sare ayaa waxaad ku dhejinaysaa biibiilihii ama bacdii marka labaad markaad intaa isku dhejisato ku kululee quraaradda shamac gubanaya sida jaantuska dhexdiisa inooga muuqata oo waxaynu halkan ku arkaynaa qalabkii quraaraddii oo biyana lagu shubay afka horena lagaga xidhay biibiile xaggeeda hoosena shamac gubanaya laga dhigay si uu shamacu u kululeeyo waxa ku jira quraaradda oo hawo iyo biyo ah haddaba u fiirsa waxa ku dhaca buufinada ama biibiilaha biibiiluhu markii hore muu buufisnayn manaad buufinina isagoo rabarkiiyo unbaad afka hore kaga xidhay quraaradda waxa ku jira quraaradda hawo ayaa ku jirta dee oo ku jirtay oon ku xidhnay dhexdeeda marka la kululeeyo hawadii gudaha quraaradda ayaa kululaata marka la kululeeyo hawadii gudaha quraaradda ayaa kululaata kadibna fida qodobkaa haddaan yaro caddeeyo biyo iyo hawa ayaa ku wada jira quraaradda xagga hoose ayaad quraaradda dab kaga shiday oo shamac gubanayaad quraaraddii dul qabatay ood ku shiday hawadii quraaradda ku jirtay way fidaysaa markay fido biibiilihii ama buufinadii way buuxsamaysaa sidii wax la afuufay oo kale noqonaysaa bal isweydii maxaa buufinada weyneeyey hawadii kululaatay
waxay kor u buuxisaa meel kasii weyn mug weyn bay qaadanaysaa inteedii hore ka badan iyada oo sababta inay buuxiso buufinka ama ay fidiso sidaa waxaa la mida oon soo qaadanaya marka taayirada baabuurku hadduu doonayo inuu taraag galo taayirkiisa aada looma buuxiyo waayo taayirka baabuurka waxaa ku jirta hawo markuu baabuurku socdo ee taayirku dhulka xoqo ee uu kululaado haddee hawadii ku jirtay baa kululaanayso fidaysa dabadeedna waxaa laga yaabaa inuu taayirkii qarxaba marka halkan waxaynu ku soo gebagabaynaynaa tijaabadan gebagabadeedu waxay noqonaysaa hawada marka la kululeeyo way fidaa sida aynu jaantuska ku arkayno qodobkaa waxaan kaga soo baxay saamaynta uu kulku ku leeyahay hawada waxa kale oo aan gelayaa saamaynta uu kulku ku leeyahay hoorka ama dareeraha dareerayaasha oo ay ka mid yihiin biyaha iyo saliidaha iyo marka la kululeeyo saamaynta uu kulku ku leeyahay waayo waxqabadka labaad ama tijaabadii hore waxaynu ku soo qaadanay waxqabadkii koowaad oo aynu ku caddaynay inay hawadu fido marka la kululeeyo waxqabadkan labaadna waxaynu ku caddaynaynaa bal saamaynta uu kulku ku leeyahay hoorka ama dareerayaasha qalabka loo baahan yahay waxaa ka mid ah weel ay biyo ku jiraan weel ay biyo ku jiraan qodobka labaad dhuun qori ah ama dhuun quraarad ah weel ay biyo ku jiraan iyo dhuun qori ah dhuun qori ah waxaan uga jeedaa ama dhuun quraarad ah waa tuumbo yar oo dhexda ka daloosha waa tuumbo yar baynu odhan karnaa quraarad ka samaysan ama qori ka samaysan waxaa kaloo aynu u baahannahay fur caag ah dabool yaroo caag ah ama rabadh ah il kuleedna waynu u baahannahay waa il ama meel uu dab baynu u baahannahay sida shamac gubanayo kaleynu u baahannahay sawirka waad arkaysaan sawirkani wuxuu ka kooban yahay waa dhaladii ama waa quraarad ay biyo ku jiraan furkii yara caagahaana waa lagu daboolay furkii yara caagahaa baa la dalooliyey waxaa la dhexgeliyey dhuuntii yarayd ee quraaradda ka samaysnayd xagga hoosena waxa kaga shidan shamac haddaba sideed iskugu habaynaysa isku habayn qaabkaasaa la iskugu habaynaya adigoo guriga joogaad waxqabadkan samayn karta ama tijaabadan waxa aad dhuunta quraaradda ah ka dhex dusisaa furka rabarka ah dhuuntii yarad ama tuumbadii yarad quraaradda ahayd baad furkii dhex gelinaysaa sidaad sawirka ku arkaysay adiga oo dhex gelinaya quraaradda ay ka buuxaan biyuhu waxa ugu muhiimsan calaamadii heerka biyaha ee dhuunta gudaheeda markaad quraaraddii yarayd aad dhex gelisay markaad dhuuntii yarayd quraaradda aad dhex gelisay quraaradda biyuhu way dhex geli doonaan tuumbada lafteeda dhuunta yaree quraaradda ka samaysan bay biyihii dhex geli doonaan quraarad weeyaan tan weyna sarana quraarad bay ahaydoo biyaha waad ka dhex arkaysaa dhuunta halkay biyuhu taagan yihiin markaa calaamadso adigoo quraaradda weyna dusha calaamadinaya halkuu ku beegan yahay biyaha dhuuntu intaa kadib dul saar weelka il kuleed dabku ha ugu dambe markaad isku wada xidhateed calaamadsato heerka ay biyuhu taagan yihiin dhuunta dhexdeeda intaa kadib dul saar weelka il kuleed sida shamc gubanaya u fiirso oo calaamadii heerka biyaha bal mar labaad haddana markay kulku ku socdo muddo bal mar labaad calaamadii haddana halkuu leefalka iyo heerka biyuhu uu marayo ma kii hore ayuu la mid yahay halkii aad calaamadisay ee biyuhu taagnaayeen intaanad kululayn ka hor iyo markaad kululaysay kadib talow leefal heerka biyuhu ma isku mid baa quraaradda dhexdeeda bal u fiirsa maxaa dhacay miyay kala baxaan biyuhu marka la kululeeyo waa su-aal halkaasay kaaga soo bixi doontaa jawaabta su-aashana waxay noqonaysaa ama gebagabada tijaabadani waxay noqonaysaa biyuhu ama dareerayaashu way kala baxaan oo way fidaan marka la kululeeyo oo iminka haddaad disti biyo ah soo qaadood buuxiso dabka saarto markii biyuhu islaba rogaanay karkaraan waxaad arkaysaa distigiio daboolka tuuraysa marka taa waxay caddaynaysaa biyuhuna dareerayaasha ayay ka mid yihiin
dareerayaashu marka la kululeeyo way kala baxaan, way fidaan. waayahay muxuu leeyahay qodobka marka la kululeeyo hoorarka iyo marka la qaboojiyaba waxay iska bedelaan qaabkoodii hore. waxay iska bedelaan qaabkoodii hore. wuxuu jeedaa haddaad dareero kululayso ama aad qaboojiso inay xaaladiisu isbedeshaa laga yaaba. haddaad isagoo dareero ah qaboojiso waxaa laga yaabaa inuu isku bedelo adke. isaga oo dareero ah haddaad kululaysana waxaa laga yaabaa inuu isku bedelo neef. waxaa laga yaabaa inay iska bedelaan qaab horeedkii marka la kululeeyo isuna bedelaan qaab neefeed. dareeru ahaa marka la kululeeyo qaab horeedkii ama qaab dareeranimadii inuu ka tago oo isku bedelo qaab hawo ah, uumi ah. qaab neefeedka hoorka ayaa la yidhaahdaa uumi. halkaa waxaa ku jira qodob muhiima. ardayow haddii lagu weydiiyo waa maxay uumi, qaab neefeedka hoorka, qaabka neefta ahee hoorkii isku bedelay ayaa la yidhaahdaa uumi. marka la qaboojiyo hoorarka hoos loo dhiga heerkulkooda waxay isu bedelaan adkayaal. waxay isku bedelaan adkayaal. waxqabadka saddexaad, maxaa dhaca marka si xad dhaaf ah loo kululeeyo biyaha? aad baa dabka loogu sii badiyey. qalabka loo baahan yahy waxaa ka mid ah biyo, bakeeri iyo ilkuleed. haye sawirka sida ka muuqata koob yar baynu soo qaadanay, biyaynu ku shubnay, dabna waynu saarno, shumac gubanayaynu hoos dhignay, aad baynu u kululaynana. bal sida loo samaynaya muxuu ihi ku shub waxoogaa biyo ah bakeeri, dul saar bakeeriga dhadhaar waa girgira yar dul saar, dhadhaar ama girgiraad dul dhigi kartaa. waxa aad hoos dhigtaa ilkuleed sida dab. dee shamacana sida sawirkaa ina wada siinaya sidaynu arkayno. waxa la soo qaatay waa bakeeri yar, biyaa lagu shubay, girgira yar baa la saaray, dabna waa la saaray. kadibna kulule ilaa ay biyuhu ka karayaan. qodobka labaad, bal ilaa biyuhu karayaan ku daa kulka. u fiirsa waxa ku dhacaya biyaha markaad ku sii wado kululaynta. markan biyuhu waxay isu bedeleen uumi biyood neef ah. uumi biyood neef ah. waxqabadka afraad ama tijaabada afraad, maxaa dhaca marka la qaboojiyo uumi biyoodka? waxaynu sheegnay marka biyo lagu shubo bakeeri ee aad loo kululeeyo waxay isku bedelaan uumi biyood. uumi biyo ah bay isku bedelayaan, dhibco uumiyay noqdeen oo dee neef bay isku bedeleen. haddaba haddii dib loo qaboojiyo uumi biyoodkii maxaa dhaca? qalabka loo baahan yahayna waxaa ka mid ah kow, kili biyo ah, saxan daab leh, waa bilaydh ama saxan meelaad qabata lehna waad u baahan tahay, ilkuleedna waad u baahan tahay. haddaba waadiga arkay kiligii yaraa oo biyo aad u kululi ku jiraan ayaa dhuuntiisa ama afkiisa waxaa ka soo boodaya uumi biyood. qof ayaa wuxuu hor qabtay saxan meeluu qabta leh. maxaa dhacay? sawirka saad ka arkaysaan. qodobka kood wuxuu kululee biyaha ku jira kiliga ilaa ay ka karayaan, ilaa ay karkarayaan. kuwad hor qaba saxanka daabka leh dhuunta kiliga. kiligii uumiga dhuuntii afkiisa uu ka soo boodayey saxankii ama balaydhkii yaraayo bal hor qabo. qodobka labaad, u fiirsa waxaa ku dhaca uumi biyoodka. marka ay uumi biyoodku la kulmaan oogada qabow ee saxanka waa ay qaboobaan oo waxa ay mar labaad isu rogaan biyo, sida lagu tusay jaantuska dhexdiisa. sida ka muuqata jaantuska dhexdiisa. marka labadan tijaabee ugu dambeeyey waxaynu soo qaadanay marka biyo aad marka hoorarka ama dareerayaasha aad loo karkariyo ama loo kululeeyo ama biyo aad loo karkariyo, biyo baan idhaahdan soo qaatee, sidaynu la wada aragno maalin walba waxay isku bedelaan uumi biyood. oo kili haddaad soo qaatood biyo ku shubtood aad u karkariso, dhuuntiisa ama afkiisa waxaa ka soo boodaya uumi. uumigana wax kale maaha ama waa dareerihiibaa isku bedelay uumi biyood baa la yidhahdaa. marka dareere aad loo karkariyo ee isku bedelo uumi
ayaa la uumi biyood. haddaba uumi biyoodka haddii marda kale la qaboojiyo wuxuu dib iskugu soo bedelayaa dareerenimadii casharkeennan maantana halkaasaan kusoo gebagabaynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaanad kala socotaan telefishanka qaranka iyo idaacadda radio hargeysa. assalaamu calaykum. waxaan nahay wahdiga dugsiyada, waxaan nahay wanada macalinka, waxaan nahay wahdiga dugsiyada, waxaan nahay wanada macalinka. waagii baryaba awbax laga waraabsho, waagii baryaba awbax laga waraabsho, waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta, wadankiina wax u barta, oo xambaaro waajibkiisa, oo xambaaro waajibkiisa. wahsan mayno, waaban mayno, warwareegi mayno, weewean mayno. wahsan mayno, waaban mayno, warwareegi mayno.